سبحان الله سبحان الله أكثر من قولك يا الله. waxaa kaloo ceeb inagu ah oo waayahan dambe inagu soo kordhay kulligeenna aan wada arkayna indhaha ku hayna gabdhaha muslimaadka ah oo qaar badan ku xijaabnaa ay yihiin inay rag ajaanib ah ay la fuulaan biki la fuulaan mootada la fuulaan gadaal bay ka fadhidaan asaguna mootadii buu kaxaynaya qaar hooleheedii iyo naasaheediina dhabarkiisu saaran yahay wadooyinkeennana way marayaan waanan daawanaynaa waa walaalaheen waa gabdhaheenni waa akhawaadkeenni ceeb weyn waxaynu u soo kordhay way oon jirin miyayna ahayn in gabdhaha muslimaadka laga baraarujiyo daahirada noocaas oo kaleeta aynan xoogaysanin oo laga hortago waa arrin foolxun waa arrin fadiixa ah dembi iyo munkarna waxaa ugu weyn mid bannaanka la soo dhigtay oo la qarsanayo intuu qarsoon yahay waa ka shar yar yahay marka bannaanka loola soo baxo oo ishu qabatoon dan laga geli ma saasay ahaan jireen salafku ridwaanullaahi calayhim maya laba miisaal baan idiin soo qaadayo saxaabadii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh cumar ibn khataab radia allahu tacaala canhu waardaah kama fi saxiixayn ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu arkay sawda waa xaaskii nabigeenna sal alla alay wasalam binti zamca oo soo baxday oo doonaysa inay xaajo soo gudato waxayna ahayd markii xijaabka la laazimiyey kadib bay ahayd dumarkuna caadatan waxay ahaan jireen ilaan musqulo ma lahaan jirin guryuhu habeenku markuu galo bay bannaanka aadi jireen oo soo xaajo gudan jireen cumar baa wuxuu arkay sawda oo socota sawdana waxay ahaan jirtay haweenay laf leh oo aad u dheer cumar markuu arkay qaabka sawda u socoto wuxuu u qaatay inay tahay qaab khaldan waa say isaga la noqotay kama aamusin ma dhihin waa xaaskii nebiga ya ma dhihin war faragelin ma dhihin maxaa kaa galay wuxuu ku yidhi sawdooy nagama qarsoonid buuri waa ku aragnaa ka fiirso qaabka aad u baxaysa buu ku yidhi sawda markiiba hadalkii qalbigeedu ku dhacway soo ma jirta nabigay u timi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo guryihiisa guri ka mida ka cashaynaya laf hilibana feenfeenanaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasay u sheegtay warkii cumar ku yidhi nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markiiba waxyi baa ku soo degay markaasaa nebigu sal alla alay wasalam wax yar kadib wuxuu ku yidhi sawda ilaahay wuxuu idiin idmay haddaad tihiin dumarkii muslimaadka ahaa inaad danihiinna iyo xaajadiinna u baxdaan alla waa idiin fasaxay waana idiin oggolaaday cumar markuu arkay sawda iyo qaabkan markuu arkay isaga waa la qumanaan wey kama aamusin saasuuna ahaan jiray kaana shadiidan fii diin illah munkar markuu arko nin adag buu ah ilaa nabigeennu yidhahdo salawaatu rabbi wasalaamu calayh cumar jid ma qaado ilaa shaydaanka jidkaa soo hayaayo waa ka leexdaa cumar markuu arko shaydaanku waa ka leexdaa liannahu kaana shadiidan fii diin illah waa adka adayg aan ahayn wax kharribid adayg aan ahayn wax muxuu ahaay wax fasaadin laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala kelimadiisa iyo amarkiisa waa ku adka qisada labaadii waxay yidhaha abu hurayra ayaa isagana waxaa soo martay maalin maalmaha ka mid a haweenay muslimad ah oo masaajidka u socoto isa soo cadriso isa soo udgisay markaasaa wuxuu ku yidhi addoontii allaay markay ag maraysay baa waxoogaa wuxuu dareemay oo soo gaaray caraftii cadarka iyo wixii udgoonaaday soo marsatay markaasuu yidhi addoon allaay ma masaajidkaad u socotaa haabay tay oo ma isagaad isu soo udgisay haa ma garanayso markaasuu wuxuu ku yidhi noqo oo ka soo qabayso cadarkan iyo udgoonkan aad isa soo marisay maxaa yeelay ilaahay ma aqbalo
haweenay soo baxday oo bannaanka u soo baxday oo masaajidka soo aaday iyadoo udgaysa ilaahay salaadeeda ma aqbalee kac noqoo soo qabaysa buu ku iska soo dhaq cadarkan iyo udgoonka iska soo dhaq abu hurayra ma dhihin faraha ka qaad laana marka laga aamuso faraha laga qaado waa jaraafiim iyo jeermis fidaya marka ugu dambaysana ina baabi'in doona sida nabigeenu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam doon la wada saaran yahay way noloshu doontana dadka duleelinaya waa kuwa ilaahay caasinaya haddaad ku fiirsataan oo qaban weynaana doontu baday wada geliyo waad wada halaagsamaysaan haddaad qabataanna iyagana waad badbaadiseen idinkuna waad badbaadeen sax gabdhaha muslimaadka ah ee waxyaabahaasi ka dhacayaani in badan oo kamid ah aqoon uma leh in badan oo kamid ah xishoodkooda yaraado iimaankii baa daciifay laakiin dad diintooda diidan ama diintoodii nacay ama gaaloobay ma aha saas daraadeed waxay u baahan yihiin dhimbisha iimaankii qalbigooda ku jirta in la dhaqaajiyo la afuufo in lala hadla basay u baahanta in lala hadla bas bay u baahanta in badan oo iyaga ka midana shaki ma leh haddaad tidhaahdo walaala ilaahay ka cabso xishood ninkan ajnabigeed saarantae gadaashiisa ku dheggan tahay akhlaaqna ma aha diintaanada kuma habboona dhaqankaagana kuma habboona haddaad ku dhahdo shaki ma leh waa xishoonaysa shaki ma leh waxay soo martay maalin dhaweyd gabadh ka mida gabdhahaasoo saaran bikibikidaasi ama mootada saaran oo nin ajnabiga u wado ayaa isoo dhaaftay anoo jidka haya waxaan aad u tamaniyey inaan gaadho saa ilaahay amarkii meelaan iga fogeyn bay kaga degtay waan soo gaadhay soo leexatay waan la soo leexday waxaan ku yidhi walaalle ninkan ajnabiga iyo meeshan aad saaran tahay ma kula fiican tahay maya bay tiri maxaa ku saaray dan baa iga fakanaysay sheekh hawl baa iga fakanayso waan degdegayey laakiin waan khaldamay u noqon maayo istaxyad inay oyday ku dhawaato waa saas laanna iimaanka qalbigeeda ku jiraa keenaya nin dhallinyaraa wuxuu ii sheegay gabdho waxaa jira inta badan guryaha hortooda jidadka caamkee la maraya guryaha hortooda soo fadhiista oo meelaha iskaga sheekaystaa jira waddooyinka caamkee la maraya raggiiba inay fadhiistaan oo nebigu ka dayriyey sal alla alay wasalam ilaa shuruud mooye bay iska soo fadhiisanaya iskaga sheekaysanaya gabdho meeshaa fadhiya ayuu soo maray nin dhallinyaraa markaasuu wuxuu ku yidhi walaalayaal meeshani meel munaasib idiina ma aha meeshii gabadh muslimada fadhiisan lahayd ma aha jid weeye guriga gala gabadh gabdhihii ka mida u soo baxday dabcan oo xoogaa qur-aanka inay ka taqaaneen waxna ka fahansanayd markaasaa waxay ku tidhi qowmkii huud nebi huud qowmkiisii hadalkii ay nebi huud ku yidhaahdeen oo ahaa ama nawacdi ama ha nawacdiine waa isugu kaana mid waxba kaa yeelimayn adeer haisdaalinin meeshan waa fadhiyaya wadaadkii intaa unbuu awooddiisa ahayda waa iska dhaafay waa isaga tegay gabadhii afka intaa waa ka tidhi laakiin kelimadii qalbigeeday u gudubtay meeshii kama kicin ilaa ay qoomamootay maalmo kadibna madrasadii iyo darsigii iyo qur-aankii bay soo xaadirtay hawshii iyada ahaydna aad bay uga qoomamootay bal u fiirso dadkani dad xumaan doona uma badna laakiin badankood ama shaytaan iyo naf ama jahli baa haya maxaad diiday markay ku soo martay gabadha muslimadda ee ninka ku dheggan inaad tidhaahdo walaala ilaahay ka xishood istaxyii min allah ilaahay ka xishood inaad tidhahdo maxaad diiday waa qalbigaaga oo iimaankaaga oo daciifay iyo danayn la'aan wey waa gabdhaheenni waa hooyooyin waa akhawaadkeenni waa walaalaheen waa arrin innaga ina taabanaysa maalin dhaweed ugandhaan tegey magaalada kambala sidanaa dumarku uga fuulaan laakiin dumarka gaaladaa fuulan dumarka gaaladaa markay saaran yihiin mootada qaab bay u fadhiistaan oo dhinac bay isu dadbaan ayadoon la fadhiisuba sax ahayn ayadoo gaala ay ninka isku dhajisoy qabsato ma sameeyaan dhinac bay u fadhiistaan oo dhinac bay lugaha u duudaan gabdhihii soomaalida markay meesha tageen
hadday dhinac u fadhiisatana inay ka dhacday ka yaabi waxana inay fuusho waa rabtaayo qaar badan baa ka dhacay waxay sameeyeen sidii raggu u fuuli jiray intay u fuuleen bay weliba ninkii isku dhajiyeen mujtamacii reer Uganda ee waxaan aqoon jirin gabadh xijaaban oo indha shareeran oo nin ajnabiya sidaa lugaha uga kala gedisay oo haddana issaartay mujtamacii reer Uganda waa la yaabay waxay dhaw warkaalay gabdhahan Soomaalidii waaba xijaaban yihiin oo asturan yihiin oo iyagaaba kuwana ka fiicane kaalisay wax ka yihiin raggan maxaa ku dhijiyay wax la yaab lay noqotay waxaasi in laga hortago u baahan mujtamaca muslimka ah waxa in la fiirsado ma aha gabdhaha waxa loo sheego hal la waaniyo markay ku soo marto ama agtaada ku dado tartiib wax ugu sheeg hadilin ha garaacin dhibaato u geysanin laakiin tartiib wax ugu sheeg walaal ilaahay ka baq hadii ay qaado weydo ku labaaday halka hadana ku yiraahdo ilaahay ka baq ku saddexaad uu ku yiraahdo ilaahay ka baq shaki ma la gabadhaasi hadda kadib ku dhiiranayso laana mujtamaci baa diidan لكن مركينو آمسنو أوشاسي وهول نقصو وجهنا يدي وحلم صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين